kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub oo markaasi xiisad gaar ah wata. waxaa magaalada Nairobi laba maalin ka hor lagu waayay wasiirkii hore ee amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa tan iyo markii uu ka soo tagay maamulka Jubbaland isla mar ahaantaana lagu qabtay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. ugu dambeynna uu mucaaradi ku noqday maamulkii uu ka tirsanaan jiray Jubbaland oo hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa waxaa bilaabatay in Axmed Madoobe iyo Cabdirashiid Janan ay noqdaan laba qofood oo markaas siyaasad ahaan iska soo horjeeda. Axmed Madoobe ayaa waxaa dabeecad u ahay shakhsigii ka soo horjeesta in markaasi uu iftiinka dunida ka qariyo, balse waa ay suuroobi waysay. Janan oo ah nin firfircoon oo dhanka militariga aad ugu firfircoon ayaa waxa uu dib ugu laabtay gobolka Gedo oo asal ahaan uu ka soo jeeday isla mar ahaantaana magaalooyinka Doolow iyo Balaxaawo. muddo kadib Cabdirashiid Janan oo caruurtiisa ay kala joogaan Turkiga iyo Nairobi ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada Nairobi, halkaasi oo isaga noolaa muddooyinkii dambe. balse warar horedhaca oo hadda aanu helayna ayaa sheegaya in Cabdirashiid Janan laga afduubtay meel u dhow gurigii, xilli markaasi la sheegayo in uu ka qayb ahaa gabdho markaa qaraabo dhow yihiin oo shil ku geeriyooday. tacsida markuu ka soo laabtay asagoo ku soo jeeday guri uu ka degan yahay magaalada Nairobi oo caruurtiisa ay joogeen ayaa waxaa dhacday in goobta laga afduubto. wararku aan helayna ayaa waxay sheegayaan in Cabdirashiid Janan ay afduubteen nabad sugidda dalka Kenya iyo sidoo kale militariga, iyagoona iska kaashanaya labada dhinac. waxaa wararka qaar ay ku darayaan intaa in militariga iyo nabad sugidda dalka Kenya oo gacan ka helaya maamulka Jubbaland ee Axmed Islaam in arrinkaasi ay fuliyeen. haddaba ogaaska beesha uu ka dhashay Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu xaqiijiyay warbaahinta in Cabdirashiid Janan dambaan dib loo arki doonin, isla mar ahaantaana Cabdirashiid uu geeriyooday loona jarjaray sidii Jamaal Khashoggi lagu jarjaray dalka Turkiga oo ay dowladda Sacuudiga dishay. haddaba Cabdirashiid iyo Axmed Islaam oo in muddo soo wada shaqeeyay maxaa ka dhaxeeyay? maxaa keenay in Cabdirashiid Janan hilbihiisa hataa la waayo oo la jarjaro? ma runbaa in Cabdirashiid uu markaasi abaabulayay sidii lagaga tuuri lahaa xukunka madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam? Cabdirashiid qudhiisa ma isu arkayay madaxweynaha xigi doona ee maamulka Jubbaland ee Axmed Islaam bedeli doona? si kastaba ha ahaatee, xaaladda gobolka ayaa waxa uu noqonayaa mid markaasi xasaradiisa cirka isku sii shareerta, maadaama uu ahaa Cabdirashiid Janan nin saameyn culus ku leh beesha uu ka dhashay iyo sidoo kale gobolka uu ka soo jeedo ee Gado. in muddo ahna uu ka talin jiray Cabdirashiid Janan. Cabdirashiid ayaa dadka markaasi aqoonta u leh waxa ay ku tilmaamaan nin siyaasi ahaan aad u degan, dhanka kalena wuxuu ahaa nin markaasi galgal badan oo isla mar ahaantaana loogu ogaa dhanka iyo weerarada, nin markaasi oo dhuunduleelo oo dhanka militariga aad u yaqiinay. allah u naxariistay Cabdirashiid Janan ayaa waxaa lagu soo waramayaa ugu dambeyn in la xaqiijiyay geeridiisa, isla mar ahaantaana rag markaasi ay u badan yihiin nabad sugidda Kenya ay dileen. dilkiisa ayaa waxaa la sheegayaa in xitaa loo adeegsaday markaasi maqarro iyo sidoo kale mashiino dadka lagu jarjaro. daawade duu muuqaalkan ku soo gaaro meel fog gaarsi, halkan waa Qab TV. qaybta hoose ee falada commentiga ra'yigaaga waa noogu reebi kartaa, waad ku mahadsan tahay daawada muuqaalka.